I want to thank Davos Lodge team. waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo kooxda Davos ee daafurka soo qaban qaabisay iyo dhammaan martida sharafta leh madaxweynaha Israa'iil iyo marwadiisa mudane Eric Trump iyo dhammaan ganacsatada iyo siyaasiyiinta miiskan fadhiya kana kala yimid daafaha dunida runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan miiskan ka mid noqdo sidoo kale aad baan ugu faraxsanahay inaan dhinac fadhiyo madaxweynaha Israa'iil Somaliland waa waddanka ugu cusub dunida waxaan uga mahad celinayaa go'aanka geesinimada leh ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil mudane Netanyahu ee uu mar labaad ku aqoonsaday Somaliland kuwaan ogeyn Somaliland waxay xornimadeeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska لحية لباتنكي جون كونية سقال بقولية لحدنكي وقتها صوماليا ما يهين دل مضح بنان شرم الموت كديب أي حد مرة قالتي سيدا سوقيت سوماليلان ما يهين قيب كميدا صوماليا وقتها si kastaba ahaatee Somaliland waxay go'aansatay inay si ikhtiyaariya oo shuruud la'aan u la midowdo Soomaaliya si loo xaqiijiyo riyadii la oran jiray Soomaali weyn Soomaali weyn xilligaasi waxay ka koobnayd 5 qaybood Djibouti waxay ka mid ahayd Soomaalidaas oo markaas loo yaqaanay French Somaliland Mogadisho waxay ahayd Soomaalidii Talyaaniga Somalilandna waxay ahayd Soomaalidii Ingiriiska qaybo kale waxay ahaayeen dhulka Soomaalida ee hadda ku jira Itoobiya iyo NFD oo hadda Kenya mar kale Somaliland waxay dib ula soo noqotay madaxbannaanideeda 18 May 1991 kadib dagaaladii sokeeye waxaan weynay ku dhawaad 200 oo kun oo muwaadiniin ah oo ay dishay dawladdii Soomaaliya ee xilligaas taariikh ahaan